muddooyin badan qarniyo badan ayaa la oran jiray dadka Soomaalida ahi ma laha tixraac ama taariikh ka waramaysa oo si fiican u qaada dhigaysa laakiinse imika taasi waa laga gudbay oo waxa la gaadhay xilli Soomaalidu ay gaadho in taariikhdooda lagu kaydiyo xarumo u gaar ah oo laga helayo magaalada Hargeysa ayaa kamid ah meelaha taariikhda Soomaalida sida fiican kaydadka lagu sameeyay gaar ahaan meelahaasi oo laga sameeyay xarumo lagu kaydiyo taariikhda Soomaalida iyo waxyaabaha ay u leeyihiin hidaha iyo dhaqanka goobahaasi ay Soomaalidu taariikhdooda lagu kaydiyo isla markaasina waxyaabaha ay dhaqanka u lahaayeen lagu kaydiyo ayaa waxa kamid ah Saryaan Museum oo magaalada Hargeysa ku taala iyo xarunta dhaqanka magaalada Hargeysa sidoo kale aqalkan aan ag taaganahay waa aqal kamid ah aqalada aqal Soomaaliga ee Soomaalidu ay u leedahay hidda iyo dhaqanka isla markaasina ay Soomaalida kaalintoodii koowaad ahaa oo hoygoogii ahaa oo ay si fiican ugu dhaataan waxaana samaystay oo astaan ama muunad uu boolkani u yahay aqal Soomaaliga ahi waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland